بسم الله الرحمن الرحيم. هجانك دقن كبالها جلمدك ورمرتيات صدق أكتوبر 2019 waxaa maanta oo taariikhdu tahay 3 Oktoobar 2019 shir iskugu yimid hogaanka dhaqanka beelaha galmudug oo si weyn u falanqeeyay halka ay marayaan dadaalada maamul dhisidda galmudug kadib shirkii dib u heshiisiinta galmudug ee soo gabagaboobay 16 Sebtembar kaas oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 720 ergo ugu horeyn hogaanka dhaqanka galmudug wuxuu u mahad celinayaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug doorka ay ka qaateen shirweynihii dib u heshiisiinta ee reer galmudug oo kaas oo ay ka soo baxday in mar kale dib loo soo dhiso galmudug cusub oo loo dhan yahay maadaama ay galmudugtii hore ay kala qaybsantay go'aanka hogaanka dhaqanka galmudug waxaan isla garanay in aan ugu baaqno dawladda federaalka iyo culimada ahlu sunna wal jamaa in ay ka heshiyaan khilaafaadka ka soo dhex usboonaaday waxaan sidoo kale xusuusinaynaa in dawladda federaalka Soomaaliya iyo culimada ahlu sunna wal jamaa midkoodna sharci iyo awood u lahayn in 35 xildhibaan oo ka mid ka ah 89 xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug oo sheegay Sheekh Maxamed Shaakir in ahlu sunna wal jamaa kula heshiisay dawladda federaalka in ay iyagu soo xulaan in aysan taas midkoodna sharci iyo xaq u lahayn hogaanka dhaqanka waxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo culimada ahlu sunna wal jamaa uga digayaan in ay isku dayaan in ay si sharci darro loo kordhiyo tirada golaha wakiilada galmudug si aan loogu xadgudbin awood qaybsiga beelaha galmudug waxaan dawladda federaalka ugu baaqaynaa in ay si degdeg ah u howlgeliso guddiga farsamada maamul dhisidda dawlad goboleedka galmudug si ay galmudug uga baxdo xaaladda adag ee ay ku sugneed sanadihii la soo dhaafay ugu dambeyn hogaanka dhaqanku wuxuu hoosta ka xariiqayaa in ay mas'uuliyadooda tahay dib u dhiska galmudug iyo xaqiijinta horumarka bulshada galmudug ku wada nool deegaanka galmudug dhammaad. Assalaamu calaykum.